So you're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. This is no accident. Indeed, it is by design. I mean, seriously? It was my mistake. I mean, I think we can all feel it. To try to make these products as addictive as possible. sidaan la socono shirkadaha baraha bulshada leh sida Facebookga, YouTubeka, Instagramka, Snapchatka iyo kuwa la midka ah waxay shaqaalaysiiyaan dad ku takhasusay sida dadka maskaxdooda loo soo jiito kuwaas oo loo yaqaan attention engineers inta badan dadkan waxa laga soo xushaa meelaha qamaarka lagu ciyaaro ee ku yaala Las Vegas dadkan ayaa loo shaqaalaysiiyay oo kaliya sida ay maskaxdaada u qabatimi lahayd adeegsiga baraha bulshada sida Facebookga oo kale waana sababta keentay inaad adiga oo maanta idaawanaya aad noqoto qof qabatimay adeegsiga baraha bulshada sidaasi oo kale waa waxa kaliya ay shirkadaha baraha bulshada leh ay ka faa'iidaan sida ay maskaxdaada ugu soo wicin lahaayeen dhankooda shirkadaha baraha bulshada leh waxay aad ugu dadaaleen sida adiga oo dhan ay ku yeelan lahaayeen waxay xoogga saareen waxa loo yaqaan attention economic midaasi oo ah in adiga oo dhan aad qabatinto adeegsiga aaladahooda bal aan u yara fiirsano nidaamka loo yaqaan Facebookga waxa loo qaabeeyay in qofka adeegsanaya maskaxdiisa waxa ku jira oo dhan uu banaanka keeno haddii uu yahay siyaasi doqon macmacle ah mid nolosha ka dhacsan ama qaybaha kale ee bulshada waxay taas keentay in qof waliba wixii maskaxdiisa ka guuxaya uu soo dhigo Facebookga isagoo aanan ka fiirsan laakiin waxaad ismoogaysiinaysaa inaad tahay qof la yeeshay oo hoggaanka loo hayo Your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. guud ahaan baraha bulshada waxaa loo qaabeeyay ama loo disaangareeyay sida maskaxdaada ay ugu mashquuli lahayd meel kasta ay joogto jiif iyo joogba inaad ku mashquusho barahooda ma waadan arag adiga oo wadada socda in maskaxdaada ay ku mashquulsan tahay adeegsiga shaashada taleefankaaga ma waadan arag adiga oo suuliga ku jira inaad ku mashquulsan tahay baraha bulshada ku darso xitaa adiga oo alla beedkiisa jooga in laga mashquuliyay cibaadadii alle laguna weeciyay ugu sawir wixii la lahaa iyo maxaa la sheegay waana waxa ay ka soo shaqeeyeen raggii aan hore kugu soo sheegay ee loo yaqaan attention engineers waxa taa ka sii daran ma waadan arag adiga oo gaari kaxeenaya inaad isticmaalayso taleefankaaga ama aad muuqaal toos loo tabinayo aad ka soo gasho taleefankaaga ma waxaad hilmaantay qiimaha noloshaada maxaadse ugu bareertay halista ah inaad gasho shil gaari oo aad naftaada ku weyn karto ama dad kale aad noloshooda ku baabi'in karto muuqaalada aad toos ugu soo galayso taleefankaaga adiga oo gaariga kaxeenaya ma waxaad isleedahay bulshadaada ayaad ku saxaysaa qaladkooda maxaad saxaysaa adiga ayaa noloshaada halis ku jirta baaritaano dhawaan la sameeyay waxay muujinayaan in halkii maalin ee ku soo marta waxa ugu badan aad ku mashquulsan tahay uu yahay taleefankaaga shaashadiisa waxay arrintani sabab ka dhigtay in taxadarkaaga oo dhan loo weeciyo meel kale lagaana dhigo dhowhane aan miir lahayn bal aan tusaale yar ku siiyo marka aad sawirka profilkaaga aad beddesho waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya ugu horeeya waa sidee ayay dadku u arki doonaan muuqaalkan ama sidee ayay faalo ugu bixin doonaan dadka kugu xiran haddii sawirkaaga uu qof laagareeyo ama uu fal kale ka sameeyo Facebookga waa uu ka warqabaa markiiba wuxuu kugu soo wargelinayaa in sawirkaaga faala laga bixiyay midaasiba markiiba waxay keenaysaa inaad ku mashquusho maalintaasi oo dhan sida aad u aqrin lahayd faalooyinka laga bixiyay muuqaalkaasi nidaamka loo qaabeeyay baraha bulshada sida Facebookga, Snapchatka iyo Instagramka waa mid u dhisan qaab sirdoon waayadii hore hay'adaha sirdoonka waxa aad ugu adkeyd inay helaan macluumaadka qofka ay doonayaan waxay u mari jireen dhibaato badan sida ay muuqaalkaaga ama macluumaadkaaga ay ku heli lahaayeen laakiin taas beddelkeeda maanta si mutadawacnimo ah adiga ayaa muuqaalkaaga iyo macluumaadkaaga banaanka u keenaya cadawgaaga oo dhan Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. haddiiba ninkii Facebookga lahaa uu diiday in macluumaadkiisa uu dadka la wadaago maxay tahay waxa ku maskax tiray oo adigu macluumaadkaaga banaanka u keenaysaa heer aad gaarto inaad sheegto halka aad ku saxarootay in aad qabatinto baraha bulshada waxay keenaysaa inuu kugu dhaco xanuunka waalida dhaqanta ee loo yaqaan depression waana waxa keena in qaar badan oo bulshadeena ka mid ah ay ku dhaxwaashaan baraha bulshada ayaga oo moodaya inay xigmad ku hadlayaan
laakiin macalayaal ah oo aanan wax xigmad ah kaaga kordhayn. haddaba ragga loo yaqaan attention engineers waxyaabaha ay ku guulaysteen waxaa ka mid ah in maskaxdaada ay ku hanteen waa iyaga oo baraha bulshada u sameeyey waxa loo yaqaan rukumasho ama subscribe, likes iyo wax la mid ah. bal u fiirso, dadka YouTube-ka leh waxay mar walba kaa codsanayaan inaad rukumato janaalkooda kadibna aad taabato gambaleelka ama jaraska yar. muxuu yahay ujeedka gambaleelka ama jaraska yar? ujeedka ugu weyn ee injineerada ay u sameeyeen wuxuu yahay in maskaxdaada oo dhan loo weeciyo adeegsiga barnaamijyadooda oo har iyo habeenba aad ka dhex bixin, oo mar waliba janalkii wax soo geliya aad u orodo adiga oo hilmaamaya noloshaada iyo danahaaga oo dhan, adiga oo isleh yaan lagaa horayn oo maxaa kugu dhaafaya aad og tahay. cilmi baaris ay samaysay jaamacadda Gothenburg ee Sweden waxaa lagu ogaaday dadka baraha bulshada adeegsada in aysan ahayn dad ku faraxsan noloshooda. baraha bulshada dhibaatooyinka laga dhaxlo waxaa ka mid ah adiga oo mar waliba ka fikira ama qabatima baraha bulshada ay ku kulanto, adiga oo noqda qof aan ka nasan shaashadaha taleefanka ama kombiyuutarka, adiga oo shaqada ama waxbarashada oo meel xun ka soo istaaga, tusaale shaqada oo lagaaga soo ceeriyo adeegsiga baraha bulshada darteed. dhibaatooyinka ugu badan uu keenay waxaa ka mid ah burbur ku yimaada qoys dhisan, nin iyo xaaskiisa oo kala shakiya, kuwaasi oo isaga shakiya inuu qof walba qof kale la socdo ama wakhtigii la isla qaadan lahaa oo yaraada. qofka oo ismoodsiya ama iska dhiga inuu yahay qof kali nool ah oo mar waliba u baahan saaxiibada uu hawada ka bartay, isaga oo mar waliba dadkaasi ka raadinaya inay ku heliyaan faallo iyo like. ogow in taleefankaaga uu noloshaada hoggaanka u hayo halka ay ahayd inaad adiga hoggaanka u qabato wax waliba. la soco wakhtigaaga waa sida seef oo kale, haddii aadan gooyn isaga ayaa ku gooyn doona. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.